masaajidka Al-Ihsaan oo ku yaala xaafadda Sembol ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ayaa waxa la sheegay inay u dhaceen laba nin oo Mareykan ah xalay saqdi dhexe. maamulka masaajidka ayaa waxay sheegeen inay qaateen qalab yeelay masaajidka isla markaana ay u gudbeen xafiiska gudaha ee maamulka masaajidka. waxaana halka hadallo kooban ka soo jeediyay isla markaana u warramay Somali Cable maamulka masaajidka iyo hay'adda u dooda xuquuqda dadka muslimiinta Mareykanka. waxaana ku bilaabeen sida tan. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مقعيق وإمام محمد مرسل إمام كمسجد الإحسان صباح النمدي أحد تقريبا مركز ساعة هاي 12 midnight بمسجد الإحسان لون إنه عدانة أصادعين البابك بيصير ترتيبه إسقاط صفورين ما هو بنو إنه يفرو waxa ay ku furhayaan inuu furo caadi ay yahay iyo inay qaab kale ku fureen laakiin maysan jabinin way soo fureen kadibna say u socdeen waxay aadeen xafiisyada mid ka mid ah oo ah kan maaragtay dugsiga iyo masaajidka administrationkiisa uu ka socdo kaas oo ay yaalaan documents iyo maaragtay bookkeeping-kii waxay qaateen checkbookskii waxay qaateen bahal la yiraahdo security safe box oo ah kan maaragtay alaabta lagu kaydiyo kaasay qaateen oo aad u cuslaa runtii kadibna waa ay baxeen muddada ay ku dhex jireen sida ay kaamaradu tusayso waxay ahayd muddo nus saac ah kadibna bannaankay u baxeen sida ay kaamaradu qabatay meesha 3 gaari bay ahaayeen 2 gaari bannaankay u joogeen waa lagu jiraa waxaad moodaa inay waardiyaha ka hayeen markii ay soo baxeen 3 gaari 2 ka mid ah way tageen midna waa uu sii joogay markay ahayd 3 am buu gaarigii haddana soo laabtay lagu qaaday security safe boxiga kadibna baabuurkii bay mid ka mid intuu ka soo degay bay kaxeeyeen marka hadda runtii waxa aan rabno inaan bulshada la wadaagno waxa weeyaan waxaa muuqata nimankaasi in aysan u soconin oo keliya inay waxadaan laga yaabo inay marar kale soo noqdaan damage inta ka badanna ay geystaan saa darteed booliiska waan la wadaagnay laamaha amniga waan la wadaagnay waxaan qabanay press release keliya aanu ku cadaynayno waxa dhacay insha Allah ta'ala aan rabno in laga hortago oo ay noqoto arrin aan soo noqnoqonin maxaa yeelay masaajidku ma aha oo keliya meel cibaado waa meel community runtii iyo dadku ay u yimaadaan ilmaha yaryar dadka da'da ah inay ku nastaan in ay saaxiibadood iyo ehelkoodii iyo qaraabadooda kula kulmaan marka hadda runtii waxoogaa dadkii cabsi baa gashay marka waxaan rabnaa cabsidaas inaysan meesha ka baxdo inaan la baqin in insha Allah ta'ala ilaahay la tala saarto waxaan rajaynaynaa biidin Ilaahi ta'ala in la soo qaban doono tuugadaas assalamu alaykum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام مير البعض جوكتان ولا لهم مسلمين تاه ما أنتم حندح جوكنا مساجد الإحسان إسلامي سنتر ورنتي حالي لو صدعي هبين هوري عن إرادو لو صدعي ونمن عدانا وصدعين ومساجد كنيسة إمامك وشيء وحكا قاتين وحيابا قاتين منها مركي كوبادي وصدع هيان مساجد كان أي دبو جيسن هيان سيدو كلا waxay dib u geysteen masaajid ku yaala masaajid al-Iimaan yiraahdo oo ku yaala Sembol sidoo kale waxa masaajida la dhibaatada loo geystay kamid ah masaajidka Ummatul Islaam waxa kale oo kamid ah masaajid dibka loo geystay Daarul Qalam waxa kamid ah Daarul Faaruq oo kulligood ku yaala areadan metro area ama labada magaalo Sembol iyo Minneapolis gaarahooda ilaa Bloomington ku yaala arinta ayada ah la beegsanayo masaajida waxaan dhihi karnaa ma ahan arrin tuuganimo iyo xatooyo kaliya ku saabsan waxay u egtahay arrin ka baxsan oo qorsheysan waxaan naga saaran waajib in aan baraarugno community-ga halkan degan Minnesota degan ee muslimiinta ah iyo guud ahaan community-ga muslimiinta Soomaalida ee degan waddanka Mareykanka in aad la isu ilaaliyo masaajida in la ilaaliyo masaajidkani waa masaajid ka tirsan ayaana
sheekh maxamedna oo imaamka masaajidka ana waa chairmanka boardka ayaana marka runtii culays weyn ayay nagu haysaa arrintaas iyada ah nabadgelyada iyo mataqaanayay safety-ga dadka Soomaalida ah muslimiinta ah ay ku tukanayeen masaajidan culays badan bay arrintani u keenaysaa insha Allah waxaan walaalaha ugu baqayaa meel walba ay joogaan in loo soo duceeyo marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo ilaaliyo masaajideena maraakisteena iyo jamaacad ku tukada iyo dad ku xiran iyo community-geena guud ahaan iyo sidoo kale in uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu ilaaliyo halkan oo nabadgelyo iyo diinteena noogu xifdiyo insha Allah waxaan kaloo idin ka codsanaynaa feejignaan qof walba anaga naga mid ah qofka arka wuxuu ka shakiyo wax uu mataqaanay uu arko inay halis noqon karaan in uu isla markiiba booliska la xiriiro oo uu sheego ama uu gudbiyo aad baad u mahadsantihiin jazakumullahu khairan barakallahu fiikum assalamu alaykum warahmatullah bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasuulillah magacayga waa Axmed Canshuur waxaan ahay executive director-ka masaajidka waxaa dhacday habeen hore qiyaastii midnight adiga 12 wixii ka dambeeyay habeennimo waxaa soo galay laba nin oo cadaan ah soo galay masaajidka waxay u muuqdeen labada nin inay furo wateen furaha ama ha noqdo mid dhumay oo furaha anagii oo dhumay ah ama mid iyagu ay cid kale ay siisay ama si kale ay ku heleen ama ha noqdo fura iyagu ay wateen oo u furi kara meesha oo nooc kale ah ilaan tugadu furayaal badan bay wataane way soo galeen ma aysan jabsanin way soo galeen gudahay soo galeen kadibna qolka reception-ka ayay toos u abaareen ayagoo meel kale ku leexanin qolka reception-ka waxay ku furteen ma naqaano sababtoo ah meesha nalka dansanaa mugdi bay ahayd lama arkin waxay sameeyeen laakiin way furteen asagana waxayna u badan tahay inay iyagu furteen siyaabo kale ku furteen kadibna khasnadii bay qaateen way baxeen gaari baa u taagnaa gaarigaas ayay ku riteen khasnadii laba gaari oo kalena way u taagnaayeen oo ayaga la shaqaynayay oo mid ka mid ah labada nin soo gashay masaajidka ayaa darawalka ahaaba oo gaariga kaxeeyay mar dambe oo la soo dhigay ayuu kaxeeyay midka kalena waa yimid runtii xilliga ay dhacday waa 12 iyo 30 iyo 2 daqiiqo ahayd markii khasnada la baxeen marka ay meesha ka tageen u dambeysana yani 3:30 agaarkeeda ayay ahayd that means waxay joogeen wax ka badan 2 saacadood iyo bad ayaad moodaa ama 3 saacadoodba ku dhawaad ayay joogeen 3 saac taqriiban 3 saac way joogeen nimanka marka waxaan u malaynay inay ay maaragtay meesha ay arkeen war xog hoosana ay hayeen sababtoo ah si ay meesha toos ugu abaari kareen ma jirto ayadaysan xog haynin furayaashana si ay ku heleen ba way heleen haddii cid gudaha joogto la shaqeynaysa jirtay iyo haddii si kale ku heleenba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Maxamed Saxane waxaan ahay odayaasha masjidka Al-Ihsan khaasatan muadinkaan ahay iyo ninka furayaasha masaajidka haya arrintani waxay dhacday sidii ay culimada igu horeysay u sheegeen amin habeen badh ah oo muxuu ahaa 6 saac iyo badh iyo wax dheer waliba abay dhacday nimankaasi qaabkay u soo galeen iyo qaabkay masaajidka u furteen iyo qaabkay u socdeen waxaad moodaysaa niman ama information haysta ama furayaal haysta qaab ay yihiinba waxay jabiyeen ma jiro waxba mayna xumaynin kale tartiib bay u soo galeen aayar bay muxuu ahaa qaateen qasnadii sidaasayna ku baxeen barnaamijkaasi waa barnaamij laabudda un muxuu ahaa ay ka soo baaraan degeen nimanku oo hore u soo maartay qaabkaas oo kale waxaad moodaa inay hore u soo maartay u soo sahansadeen kolleyba waxa weeye anagu masaajidka waan ku tukanay cishihii baan ku tukanay waan wada xidhxidhanay xaaladihiisii waan wada hagaajinay sidii aan kaga dheelman jiraan kaga dheelmanay meel walba waan security-gi waan sugnay sidaasaan kaga dheelmanay jamaacadii iyo dadkii quraanka akhrisanayay iyo dadkii muxuu ah masaajidka ku cibaadeysan jiray dhammaantood markii ay hawlahoodii bogteen ee la kala dheelmaday ayaan masaajidkii wada xidhxidhnay oon security-giisa meelba ka sugnay saasaan kaga dheelmanay marka duulaankaasi kolley waa duulaan khatartiisa leh
arrintaa iyada adee kolley dowladdana waa u gudbinay meel walba maaragtay arrintaan waa ka sheegnay waxaana rajaynaynaa ummaddaas maaragtay in kaamerooyinku way wada qabteen muuqaalkoodii iyagoon xataa maaragtay isqarinaynin oon afka xidhnayn bay xataa soo galeen hawsha qabteen oy barnaamijka fuliyeen waxaan rajaynaynaa ilaahay idinka inay maaragtay uun gacanta lagu soo dhigi doono hawsha amnigeeda la sugi doono arrintaasina khatarteeday leedahay aadna waa uga baqaynaa arrintaa iyada ah waxaan marka rabnaa insha allahu tacaala oon codsanaynaa in arrintaas si dhab ah ay dowladda uga howlgasho lana soo afjaro xaaladda insha allahu tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومي هيدا كير من الصوت الجيلاني محمد حسين وحن تاجنا مانت مساجد كي الإحسان أو أنو تاجنا هاي مركي مالنتي أحد الصبح لبني نيسوق قلن لبدنين أو مساجد كجوديه سي كقاتي قسنت أي لعق كجرت يوراقة مهمة مساجد كأ مانت أو أن شر جرائد أسوس تاجننا صبحي ننكي حلي إمادية مساجد كجب صدي كوي نين كمد أو إيج أو إسلا بابور وتا أي مساجد كوسو لابت بنان كيسة أناجي إمام كدبا قلني عبار مركن دبس عني وحن نكي وبحصدي مرصد حد بدنا صو لابتي runtii markaa hadda hay-adihiina badsugidda dhoon warka waan gaarsiinay dadkii mujtamaca warka waan gaarsiinay maantana runtii waxay caddayn u tahay in ay dhibaatooyinkan sida gaarka masaajidada loo daba tegayo inay soo badanayaan oo loo baahan yahay mujtamaca muslimiinta mar walba inay maaragtay runtii ay digtoonaadaan oo ay ogaadaan maaragtay inay dhibaatooyinkan badanayaan oona loo baahan yahay in la kordhiyo gaar ahaan masaajidada maalgelinta lagu siinayo dhinaca security-ga sidii aan maaragtay community-geena masaajidadeena aan si fiican u ilaalin lahayn dhibaatadina waa dhibaato runtii na wada saameynaysa masaajidkan wuxuu ka mid yahay hadda masaajidadii Minnesota oo hadda aad u soo tababartay anu hadda hay'adda care maamul waxaan ka ahaa 2015 labadii sanena soo dhaaf inta masaajida la galay weligeed lama gelin taasina waxay cadeynaysaa in dhibaatooyinkan ay soo badanayaan marka waxaan rabnaa mujtamaca bulshada inay soo jeetaan oo ogaadaan dhibtan waxay ka qaban karaan ka qabtaan gaar ahaanna la ogaado dhibaatooyinkan in wax laga qabto degdeg weeyaan hay'adaha nabadsugidu iyo dadka aan dooranay xildhibaanada ana waxa loo baahan yahay maalgelinta iyo caawimaadka sidii looga hortagi lahaa arrimahan la sameeyo bulshada caamka ana maalinta sabtida u yeerinay in masaajid ka qayb galaan barnaamij dhici doona gaar ahaan anagoo ka xun haddana waxaan rabnaa inaan dadku ogaadaan masaajidku waa safe dadku ha imaadaan ha camiraan dadkani annaga nagama joojinayaan salaadeennii iyo maaragtay runtii taasina maaha in sabab masaajidka looga haro laakiin in la adkeeyo ilaalinta iyo nabad sugidda waa wax muhiima oo loo baahan yahay hadda gaar ahaan xilligan ku jirno in laga shaqeeyo isku soo wada duuba ma ahan markii ugu horreysay dhibaatooyin noocan oo kale loo geysto dadka muslimiinta ku nool Mareykanka awil nuur shire telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Minneapolis